ودي وحنوغا الصدا قبرواتانها قياكي والجلا وتهدي قلافتين قعله قعلوا لبقور جتين وكيو إلكي قريدان وكيو إلكي قريدان ويكيو إلكي قريدان وكيو إلكي قريدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلهانتين بخيارتي قيمة أي قدرين تنجمدنا وميل كستا ودافع عالم كان نجدا ونسان كلنتو عنو ونكسن كسر هذا برنامج كني حسها لها إلى تالي وقت كانوا كلا كدا وتان تلفزيون عالمي ESTV برنامج كيلا تالي واحد الناس عتيسة أنا جو نذيرة dhanka farsamada waxa si hagar la'aan iyaguna igala qayb qaadanaya waa Cabdirax Xuseen Muusaan aad iyo aad ugu mahadcelinayo madaxa kamarada Axmed Mahdi oo isaguna aad iyo aad ugu mahadcelinayo isku dubaridka barnaamijka iyo waliba diyaarinta waa Ilyas Ibrahim oo aan isagana aad iyo aad ugu mahadcelinayo maadaama barnaamijka qayb lixaad leh oo had iyo goor barnaamijka ila talo uu ka qayb qaato habeentana isagoo sidoo kale waxa ka qayb qaatay Nimcaan Gaas Cawaale oo aad iyo aad isagana aan ugu mahadcelinayo anagoo isku duuban dhamaantayo waxaan gudagali doonaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee ila tali aan wada daawana mar kale codsiga gabadhu ay noo soo dirsatay si aan barnaamijkeena aan mar kale iskugu soo laabano daawasho wacan وتهدي قلافتين قعلوا لبقور جتين وكيو إلكي قريدان وكيو إلكي قريدان ويكيو إلكي قريدان وكيو إلكي قريدان نقرب كنولي نعوذ كمبحو أنا وأن أنقلهاي من أمد وين تاي nabad guriga ku taal naxli laguma doorsado naftu way ku jeceshay adna nudub ha u noqon iyo nacab shisheeya waxaan ahaa gabadh mar uun jeclayd in ay dhoofto aadana dalka dibadiisa si kastaba ha ahaatee waxaan raacdo u galay in aan mar uun helo mid nasab ah oo nafta raali geliya maalin iyo habeenba maaweeliya waxay maalmuhu isriixaanba da'da iyo cimriguna socdo anna aan la daalaadhacsanahay ayaa waxaa maalin maalmaha ka mida aniga oo ku sugan garoonka caalamiga ah ee Gradwell Airport ayaa waxaa soo caga dhigatay diyaarad siday dadyow kala duwan oo dalkoodii hooyo u soo dalxiis tagay walow uu saarnaa midkan sanadahanba sugayay saadaalinayay waxaanan si kadisa ugu kulannay goobtii wiil waxaanan dareen gaara u yeeshay isagoo oo aad moodo inaan ahay midii uu raadinayay ayaan waxaan ku idhi ammaantaada gaarka ah waxaan sii asteeyaba naftu ka ogolaatee adigaa ragga oo idil kaa calmaday ee cidlaha igu dhaafin wuxuuna iigu jawaabay waxaa tahay naftu tay rabtay oo raalli baan kaa ahay wax aan filayay ayaa ii hirgalay waanan ku farxay wuxuuna ii sheegay inuu fasax u yimid muddo kadibna uu laaban doono anna waa sidii aan rabay oo waxaan naawilayay ayaa ii hirgalay haddaba waxa uu ii sheegay inuu isoo dooni rabo reerkayagana waan u sheegay waana la iga aqbalay arrintaas waxaana la gaadhay xilligii ballanta ahayd ee aan guri geli lahayn waanan aqal galnay oo nolol cusub ayaa noo bilaamatay naftu marna way ka xiisa goyn kari weyday oo aragtidiisa mooye meel kale way diiday haddaba wakhtigu wuu socdaa anna waxaa igu soo baxay xaaladii dumarnimo oo xaamilo ayaa noqday waxaana la gaadhay xilligii uu dib ugu laaban lahaa
dalka dibaddiisa wuxuuna ii sheegay muddo yar kadib inuu i dhoofin doono anna farxad ayaan kala batay oo farxadda awgeed ayaan ilaawayba inaan xaamilo ahay jabkuba waa ka dambeeye markii uu iga tegey waxaan dareemay cidlo ba'an oo bilaawehel iga dhigtay toddobaad kadibna waxaan dhalay wiil oo sidii aan ahaa waxbaa iska beddelay durbo hooyo ayaan noqday oo midkaan calmadayna maalin iyo habeen igama warhayo oo waxaa iigu dambaysay maalintuu baxay cid aan ka waraystana ma garanayo faamiligiisa oo dhan dibadda ayay ku maqan yihiin oo maalintii uu reerkayaga iga soo doontay way la socdeen haddaba taleefankiisa marka aan waco igama qabanayo iimailkiisa haddii aan fariin u dhigo igama soo jawaabayo facebookana isaga oo wakhti kasta isticmaala aniga wuu i baloogareeyey haddaba waxaan ka codsanayaa daawadayaasha ESTV in ay igala taliyaan arrintan waayo jahwareer ayay igu noqotay qisadan i qabsatay aniga قعله قعلو لبا قور دبتين قدكيو إلكي قريدا قدكيو إلكي قريدا وي قدكيو إلكي قريدا قدكيو إلكي قريدا maanta barnaamijka ila taliyo aan ka qayb qaadanayo waxaan kula talin lahaa gabadhaas odaygeed uu ka maqan yahay in ama wiilka ay soo raadiso ama ay intii soo helayso ama qoyskiisa ama faamiligiisa inuu dul qaadato inta ay soo helayso habluhuna iyagu horta in degdegaan maaha waa in u fiirsadaan haddii ay yiraahdeen wiilku waa qurba joog qura ay iyagoo jacayl ama waxba eegin inay ku ordaan ma laakiin waa in ay eegaan qofka inuu mustaqbalkeeda uu wadi karo oo adkayn karo iyada waa in uu fiirsato in iska degdegto maaha oo lacag un eegto gabadha horta marka hore waxaan kula talin lahaa ina ku inuu dhintay inuu nool yahay Allah yaclam horta marka hore Ilaahay baa garanaya laakiin anu waxaan kula talin lahaa gabadha maadaama uu degdegto inaan ka aqoon u lahayn haddana samraama sad waayo laakiin waxaan u dhan lahaa gabadhaas haddii aad calaf inuu ku leedahay mar un baad heli laakiin haddii aad waxba aad ku lahayn laakiin meelis laakiin gabdhaha marka hore waxaan u dhan lahaa kula talin lahaa marka ay degdegayaan wax ay garanayaan iyagu ay ku degdegayaan ka fiirsadaan u dhan lahaa قدال موسو نقدا قدال موسو نقدا قدال موسو نقدا بسم الله وحالي دهان نستيحة خضر عبدي وحانا أرديد كميدة أرديد تشيجة هيرسايس كولج كل واحد والبوا قدر لكن أنا وحان قبل كل تلنها كل سمرك واحد دقمة مترو سمرة ست كيس مواعية باللي هريبة لا شيء قبلها كلنا وحان كوان لها بدنا قبلها وحي كوهن هي مر البي أو يتجاران إن دتك دبده كي ما دي جورسدان أما أي مقع كهلان ولا يدادو هبلا دبده على قصادوني لكن أنا وحان كتاجر سنة أو شيء ياك دمان قبلها كنا الدجان إن أي دتك دجان كود إسك جورسدان أو عندنا بإسراع راعين تاسبان قبلها كل تلينها أيضا يجوحن كل تلين وتهذه قلافتين قعله قعلوا لبقور دبتين قدكيو إلكي قريدا قدكيو إلكي قريدا وي قدكيو إلكي قريدا قدكيو إلكي قريدا وهاجاك داوديال طبعا waan filayaa waan rajeynayaa inaad ka wada bogateen talada ay asxaabtaasi ay siiyeen gabadhaasi aan ku sii socdo dhanka emailada Naciima Maxamed Yuusuf oo joogta Sheedheer waxay tiri maadaama ay wiil haysata bay tiri wiilkaaga korsa ayaan odhan lahaa iyada
wiilkiina waxaan isagana kula talinayaa bay tiri nafsi ayuu galay waa inuu ka soo noqdo bay tiri oo xaaskiisa u soo laabto hurre cabdi aadan oo jooga xaafadda saddexaad ee magaalada Jigjiga waxaan kula talinayaa buu yidhi inay iska ilowda ninkaasi oo ay wiil kale oo dalka jooga ay raadsato hurre adigana waan rajaynayaa walaalo inay taladaada qaadan doonto gabadhaasi aan soo qabto khadka taleefanka hello walaalo waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka ila tali adoo ku horeynaya magacaaga iyo halkaad gala soo wareysid magacayga waxaa la dhahaa axmed xaaji cabdiqaadir waxaan ka soo hadlayaa magaalada Jigjiga maxaafadda Kawaaniga Tumaad aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka ila tali wada la socotaan filaya maxaad kula talin lahayd gabadhaas waxaan kula talin lahaa walaal gabadhaas inay macnihii iska samirto maadaama oo ay nahay dad muslima marka waxaan aad u jeclaan lahaa in gabadhaas maadaama oo ay waqti badan u hortay inay dibadda marsha ku hesho ama ay dhoofto in wiilkii ay ilaahay calafkeeda siiyey mar hadduu arrintaa ku sameeyey rag way badan yihiin qabalay ay joogto qabalay ku xigay inay ka guursato wiil kale intay iska fasaxo waan gartay aad baad u mahadsantahay ta kale maxaad kula talin lahayd wiilasha iyagu sidaas oo kale gabdhaha u gala wiilasha horta waxaan dhihi lahaa mid fariin baan u fari lahaa mar gabdhuhu way nala dhasheen mar waa hooyadeen mar waa walaaladeen marka waxaan kula talin lahaa gabdhaha wiilasha inay ka digtoonaadaan ficilada noocaas oo kale ah ee gabdhaha u keeni kara iskub ama mataqaanaa gariib ama waxyaalo ficilo xun aad baad u mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaya ka qaybgalka barnaamijka aad baan kuugu mahadcelinaya aan soo qabto daawadaha xiga Mustafa Xasan wuxuu yiri waxaan leeyahay gabdhaha buu yiri dalka jooga in ay ka digtoonaadaan buu yiri weeyaan ragga dibadaha ka imanaya markaa buu yiri intaad isleedihiin buu yiri dollar buu sitaayay la dakeeya ha ku jabinay buu yiri waa inaad ka fiirsataan gabadhanna waxaan kula talinayaa iyada buu yiri rafiiqaagii ilaahay kuu qoray dalka gudihiisa ayuu joogaya buu yiri u samir qalbigaagana ha jabinin ayuu ku soo gabagabeeyay Mustafa Xasan Mustafa aad baan kugu mahadcelinayaa walaalaad ka qaybgalka barnaamijka Juweeriya Nimcaan oo joogta Burca waxaan kula talinayaa bay tiri inay ninkaasi iska fasaqdo aan soo qabto dhanka khadka taleefanka hello walaashay waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka ila tali adoo ku horeynaya magacaaga walaal waxaan ka magacaygu waa Naseexa Ciidil walaal waxaan ka hadlayaa gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Khallaafe aad iyo aad baan walaashay kugu soo dhaweynayaa barnaamijka ila tali waan rajaynayaa inaad la socotay maxaad kula talinaysaa walaal waxaan kula talinayaa gabadha walaashay ah inay iskaga samirto maadaama shalay ay dooratay wiilka ay guursatay marka waxaad ku leedahay samir baad ku soo gabagabeynaysaa iska samir baan leeyahay wiilkana maxaad isaga u sheegaysaa dabcan waxa laga yaabaa inuu ku daawanayo wiilkana waxaan u sheegayaa gabadha walaasha ay qayaantay in aad walaalow daacad noqoto ku soo laabato aad baad mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka Xaliima waxay tiri waxaan joogaa magaalada Jigjiga waxaan kula talinayaa ninkaas in ay iska ilowda bay tiri oo ay nin kale ay iska guursato Ikraan oo joogta xaafadda 10aad ee magaalada Jigjiga waxaan kula talinayaa bay tiri sidoo kale in ay iska samirto ubax shire aadan waxay tiri waxaan joogaa magaalada Jigjiga ee xaafadda 4aad ee magaalada Jigjiga waxaan kula talinayaa bay tiri gabadha markii hore ayaad khasaartay bay tiri imikana waxaan ku leeyahay waqti kaama tagin 15 jir ayaa tahay Mustafa Xasan oo dabcan isaguna mar labaad barnaamijka ku soo laabtay wuxuu yiri nimanka dibadaha ka imanaya buu yiri waxaan u sheegayaa maadaama buu yiri ay damceen buu yiri hablaha dahabka ah buu yiri ee dalka jooga waa inay dar yeelaan bay ahayd buu yiri ee ma ahayn inay dugaag ay ku noqdaan Mustafa waan ku mahadcelinayaa sida wacan dabcan mar labaad ayaad igala qayb qaadatay barnaamijka sida wanaagsan ee aad nagala qayb qaadatay aan soo qabto dhanka khadka taleefanka hello walaal waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka la tali magacaaga walaal magacaygu waa Maxamed Raxmaan Baliraa maxamed oo halkeed igala soo hadlaysaa waxaan joogaa Roobay gobolka Baali
norway aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka ila tali maxaad kula talin lahayd horta maanan fahmin hoogaa yara ii jibaydo waan kugu soo celiyaa okay gabadh iyo wiil baa isqabay aye wiilku wuxuu ahaa mid ka yimid dalka dibadiisa aye kadib gabadhii markuu guursaday markuu la aqal galay ee uu guursaday gabadhii iyadoo uur leh ayuu dalka ka dhoofay oo dalkiisi ku noqday dibadda aye kadib wax xumaana kama dhaxayn iyagoo isjecel isku faraxsan nolol wacan ku wada nool ayaa maxaa la yidhaahdayay ayuu dalka dibadiisii ku noqday maalintii uu dhoofay ayaa gabadha warkiisii ugu dambeysay mana soo wicin xaaladeeda muuna ogaanin ilmihiisa xitaa kama warhayo iyada way yaaban tahay waxay is leedahay talow ninkaas maxaa ku dhacay miyuu xanuunsaday hadduu xanuunsaday kula soo socodsiin lahaa fariin buu kusoo gudbin lahaa ama uu kusoo wici lahaa taleefonka kama soo waco emailada hadday fariin u dirto ugama soo jawaabo hadday noqoto dhanka facebookana blog ayuuba saarayba markaa wayba yaabanta waxay is leedahay maxaan sameeyaa muddo badanna uu ka maqan yahay marka adiga fikirkaaga ra'yigaaga maxaad kula talin lahayd haddii aan la taliyo gabadhaas kulleyba rag lama waayo rag fiican waa joogaa haye waxaan oran lahaa inay iska furto ninkaas oo ninkan raadsato oo ka khayr badan ninka isaga maxaad kula talin lahayd laga yaabaa inuu barnaamijka daawanayo ninka waa nin xun oo maaragtay reerkiibu xiriirin waayo waxaan ku tilmaamayaa ma aqaanay kaasi nin reerkiisa xiriirin waayo nin umaba aqaanay warinta aad baan kugu mahad celinaya walaalo sida wanaagsan ee barnaamijka ay gala qayb qaadatay aan soo qabto khadka xiga hallo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ولا لك وقصر وين يا برنامج كلا تلي مقع عاقا ولا الحياة حسن بريدة حياة حقيقة قصة وعيسى ولا القولة النبات يا مقالة شكا أهلا وقصر وين يا برنامج كلا ما حد كلا تلنا يسا ولا الجبدة أنا برها إسكا سمر إسكا سمر هيا ما حد كلا دور راعين لها الويل كسر ما حد كلا تلنا هيد السقا كاو كذا كل ما صليه isaga wad ka aamusay ba isaga ka aamusay bas samir baan adooha aad iyo aad baad walaalo mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaya ka qaybgalka barnaamijka aan soo qabto khadka xiga hallo walaalo kugu soo dhaweynaya barnaamijka la tali magacaaga magacayga walaal Axmed Nuur baa la dhahaa muuse oo halkayga soo wacaya Axmed Nuur halkayga la soo hadlaya dirada waa magaalada Degdega dirada aad baan kugu soo dhaweynaya walaalo barnaamijka ila tali maxaad kula talinaysaa walaal gabadhaani waxaan kula talin lahaa in intaas iska ilowdo iska ilowdo ka tagi haye isagana runtii wax laga yiraahdo ma jiro isaga waa go'aan isaga dhaafay inuu la soo hadli waayo adu bal maxaad u malaynaysaa talo maxaad odhan kartaa ra'yigaaga muxuu gabadhaas wuxuu maanta aynay ka dhaxaynin muxuu uga goostay ayaad isdhihi kartaa waa qorshe dankiisa taas aniga walaal kama hadli karo haye markaas ani waxaan leeyahay isagay taas u taallaa iyada gabadhaana waxaan odhan lahaa inay nin kale iska gursato aad baan kugu mahad celinayaa sida wacan hallo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا بان kugu soo dhaweynaya barnaamijka la tali magacaaga magacaygu waa Maxamuud Axmed Cabdi walaal adaan ra'yigayga aan ka hadlo waxaan leeyahay gabadhaas walaasheeya ninkaas nin fiican ma ahan ilaahayna wax khayr qabo ilaahay waxa uu yahay meel kale ka siiyo haye asana waxaan leeyahay ilaahay soo hadeeyo haye haddaan ninkaas fiicantiisa aan ka hadlo waxaan leeyahay ninkaasoo gabadhaas uqubadeedii iyo inkaarteedii way koosatay adduunya aakhiro haddii aad u soo laabin oo xaqeeda aad siin ama sadaqadeeda aadana raali kareen gabadhaas oo aakhiro adduunka ku soo socdaan leeyahay ma garata hadduu maqlayo waan gartay si wacan haye marka gabadhaasna waxaan leeyahay ilaahay ayadana ninkaas hadduu u yahay in calaf waxa waaye oo isku haray ilaahay asana u soo hadiyaan leeyahay ilaahay u soo hadiyo way sabartay ilaa intii xada waan gartay marka walaal muxuu waxaan ku soo gudbinayaa ra'yigayga
ray fiican baad keentay aad iyo aad bad walaalo mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa sida wacan ee barnaamijka gala qayb qaadatay akhyaar intaas waxay nooga eeg barnaamijkeena xiisaha lahaa ila tali oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee ESTV habeen walba oo khamiis ah barnaamijka waxaa si hagar la'aan igala qayb qaatay soo saaraha barnaamijka isku dubaridka waa Ilyas Ibrahim oo barnaamijka ila tali qayb lixaad leh ka qaata hadiyo goor on aad iyo aad ugu mahadcelinayo dabcan waliba dhanka habeentana isaga qayb lixaad leh ku lahaa Ilyas aad baad mahadsantahay walaalo waxaan kaloo u mahadcelinayaa farsamayaqaankeena qaaliga ah oo dhanka telefoonka iyo waliba heesaha iyo waliba rayga dadweynaha bay noo soo gudbinaya Cabdire Xuseen Muuse aad iyo aad ban Cabdire adigana kugu mahadcelinaya madaxa kamarada Axmed Mahdi oo isagu dhanka kamarada isaguna noogu helnaa Axmed Mahdi aad iyo aad walaalo mahadsantahay nimcaan gaas cawaale oo isna barnaamijka habeeya nimcaan aad iyo aad walaalo mahadsantahay Mustafa Xasan oo isaguna farsamayaqaan kamid ah wakaalada warbaahinta oo isaguna barnaamijka caawa qayb lixaad igala qayb qaatay aad iyo aad ban Mustafa kugu mahadcelinaya dhanka aan idhaahday asxaabtiina soo fadhiday barnaamijka sida tooska noo daawanaysay ee nala socotay aad iyo aad baad mahadsantiin inta khadku u soo gali waayay iyo waliba inta dhanka telefoonka igala qayb qaadatay iyo waliba dhanka emailada aad iyo aad baan asxaabay idinku mahadcelinaya waad ku mahadsantiin sida wacaneed mar walba barnaamijka ila tali aad ula socotaan anagoo isku duuban waxaan idin socodsiinaysay anigoo Nadiira Sooyaana anagoo isku duuban waxaan idinka tagnaa fanaanada codka macaan leh ee kafeeya intaan insha Allah barnaamijkan mid lamid aan ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo